بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلاد جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكوان ما يالو عدي لبنبك الله كقادو عدي دل الله وفيو انت باهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دمت الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستو annagana allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaana wa tacaala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad heshiiskii ka dhacay Ankara, qodobka labaad dhacdadii ka dhacday Jubbaland. waxaa dhacay heshiis ka dhacay dalka Turkiga, waxaa dhexdhexaadinayay Turki madaxweynaheeda Erdogan. waxaa heshiiskaas iyo shirkaasi uu u dhaxeeyay Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. waxaynu maqlaynay sanad kaamil ah Xasan Sheekh oo leh ilaa ay Itoobiya ku dhawaaqdo in ay ka noqoto heshiiskii hor fariisan maayo. waxaan kaloo maqlaynay Abiy Ahmed oo ku celcelinaya heshiiskaasi uu dhaqan galaya. xagee bay ku dambaysay arrintaasi? labadaa nin mid horta sidiisaaba looga adag yahay. mar alla markuu ajnabi arkuu jilbaha isla dhaca oo gariira oo rukuuca oo sujuuda wax alla wixii la hordhigana saxiixa waa Xasan Sheekh. ninka kalena waxaa wadada saaray ku soo riday dariiqa saxda ah baarqabnimada iyo guusha uu ka wato dalka Syria Erdogan, iyo isagoo shining star ka ah ama xidig nuuraysa ka ah NATO, Maraykanka iyo Israa'iilna beerka ugu jira. waan ogaa marka inuu khasbayo labadoodaba sheekadoodana soo afjarayo. waxaa ilaahay mahadiisa inuusan cadow iyo col ahayn, Soomaaliya ku ahayn, rabin inay Soomaaliya dhulkeeda la qaato. waxaa la siiyey Abiy Ahmed face saving ah inuusan ku dhawaaqin, si babliga ugu dhawaaqin MOU-gi waa ka noqday, laakiin technically loo dilo MOU-gi. arrintaasi waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. maadaama uusan cadow ahayn waa filaynay inay arrintaasi dhacayso. waxaan kaloo rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sharaxo kelimaadka uu isticmaalayay Erdogan. warqadda la soo saarayna ku qoran oo ah in la siiyo access to and from the sea waa the legal language oo internationally recognized ah. adduunka hadalka sharciga ah ee sharciga adduunka waafaqsan ee ay ku wada dhaqmaan badaha wadamada leh iyo wadamada aan badaha lahayn iyaga ku xiga oo ka raba inay badda gaaraan. kelimaadka sharciga ee laysu isticmaalo ayaa la isticmaalay. unclose language-keedii baa lagu hadlay. arrintaasi marka waa daruuri in la fahmo. marka la yidhaahdo to an access from the sea, halkaa waxaa ka baxay dhulka, ka baxay dhulka. meesha uu halkaan lahaa 20 kilomitro aan anigu base ka dhigto military baan rabaa, oo iyo wadada ku aadan ilaa Itoobiya xuduudeeda la gaaro, ilaa badda la gaaro, inta u dhaxayso oo dhul ahna la qaato. sheekadaasi meesha way ka baxday. to an access from the sea waa sharciga koowaad. qodobka labaad, wadanka baddiisa loo socdo oo la raba in la galo ama wax laga dhoofsado ama wax lagala dego, ogolaanshihiisu waa shardi iyo daruuri. waana sababta keentay in lagu qoro waa commercial purpose. arrintaasina waa guul Soomaali u soo hoyatay. commercial purpose. madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay inuu arrintaa achieve gareeyo gaaray. waa inay noqotaa arrin ganacsi oo keliya. waxaa ka baxay halkaa ciidan inay tahay, waxaa kaloo ka baxay dhul la qaadanaya inay tahay. waxaa kuu soo haray oo qodobka saddexaad ah, waddanka maraya waddankan kale dhulkiisa oo raba inuu baddiisa wax ka dhoofsado, wax kala dego, waxa uu raacayaa oo liable u yahay the terms and the conditions of the hosting country. waddanka la dhex marayo sharciyadiisu aqbalayaa, ixtiraam buu bixinayaa. waana arrinta uu ku hadlayo marka uu leeyahay the integrity of the territorial integrity, the sovereignty of Somalia baanu ku dhawaaqaynaa, ictiraafsannahay. technically halkaa waxaa ku dhintay MOU, waxaa ku dhintay base military,
waxa ku dhintay inay ujeedo aan ahaan karin ganacsi arrintaasina waa arrin aad daruuri ah in loo fahmo saddexdaa qodob marka la israaciyo weliba inaad laan looki tahay xaq kuu siin mayso oo keligeeda xaq kuu siin mayso inaad wax dhoofsataan wax la degto waa inaad qancisaa raali gelisaa raallina ay kaa tahay dowladda aad maraysid wadadeeda arrintaas marka waa daruuri in la fahmo waxaase mushkilo ah oo muhiima xasanow ma tihid ninkii lagu aamini lahaa ma tihid waxaa tahay nin musuq iyo qarsoodi dhaqan ay u tahay waxaa tahay nin ay dhaqan u tahay laguna yaqaan inuu u jilicsan yahay ajnabiga waxaa tahay nimaan waxba ka aqoon wuxuusan waxba ka aqoon isku abraara oo isagu qaata haa marka xal ah waa marka koowaade baddaas ka bilaabata gobollada dhexe garaacad badhe ka soo bilow ilaa Kismaayo inta u dhaxaysa la siinayaa nimanka baa laga siinayaa meel ay ka ganacsadaan sababtaan saa u leeyahay maxay tahay mushkilada loo socdo turkiga laftigiisana aan uga shakisanahay waa baddaas nimankaasi dhankaa inay tagaan looma ogolaanayo absolutely waa in loo diidaa waa inay dekadahan kale dekad laysla dhistay oo kharashkeeda la ogyahay sharciyadeeda la ogyahay dokumentigeeda la ogyahay ruulskeeda la ogyahay waa in halkaa laga ambaqaadaa oo laga ilaaliyo badweynta hindiya hala keeno nimanka la yidhaha Ethiopia sinaban ayaan loogu ogolaan dhankaas iyo Yemen iyo Soomaaliya badda u dhaxaysa in ay meelna ka tagaan yaan loo ogolaan qodobkaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad dad sharci yaqaana oo xasano waxaan garanaya oo la mid ah looyaradii ay reer farmaajo qabsadeen markii ay ku dagaalamayeen arrintii badda oo heer caalami ah waa in la hayrgareeyaa dowladduna lacagtooda bixisaa oo qora heshiiska oo ina ka faaqida ina ka fiiriya tafaftira finalkana waa in lasoo dhigaa baarlamaanka si sharciya oo nadiifana loo baasiya qodobkaasna waa qodobka ku xiga waa arrinta ku saabsan arrinta badda inta haddii la maro ilaahu la badbaadaa arrinta liisku waa very important in la ogaado waa khatar bay keeni kartaa laakiin DP walba haddeer liis bay ku haysataa degadeena laakiin dhulkeena ma haysato shaygu marka uu ka soo dego markabka oo uu ku soo dhaco dhulka Ethiopia maadaama ay qirtay sovereignty-ga Soomaaliya dhulkaas la dhigayo jawaanka iyagu keensadeen iyagu ma maamulaan taladeedana ma laha marka dekado ay Soomaaliya maamulkeeda leedahay 100% baabuurta ka qaadaysa dekada ilaa xuduudda Ethiopia geenaysana ay tahay baabuurta Soomaaliyeed dadka ka shaqaysanaya oo lacagta ka helayaan ay yihiin xamaaliga Soomaaliyeed arrintaasi waa faa'iido Soomaaliyeed xasano saasan ka rabnaa kuguma aamini karna keligaaye na soo dhig bahasha miiska soo saar qodobkaas intaasan ka oranaya qodobka ku xiga baa ka dhacday iyo fadeexad Kamboni 260 kilomitir bay Kismaayo jirtaa ilaa 270 intoo kale baraa waa u jirta labadaba shabaab baa u dhaxeeya Kismaayo maxaa xaggaa u aadi weyday oo ku dhow oo xaggaa kala doontay geeri go'anka ciidamada waxayna tusaysaa istiraatiijiyad xumadii aad kula diriri jirtay al-shabaab kala hore by the way shabaabka dagaalkiisa waxaa kugu dambeysay August 2023 sanad iyo 4 bilood shabaab inay iyagu wax weeraraan oo meel qabsadaan maahe ma aadan weerarin waxaan la yaabanayn ciidamada maxaa loo jabinayaa ciidanku Soomaaliya uu ka adkaan jiray al-shabaab waaya u jabayaan ciidan laga soo ururiyay Haramcad oo qaar laga soo ururiyay Gorgor oo qaar laga soo ururiyay Nisa oo qaar istaafyada laga soo ururiyay madaxtooyada iyo meelo kale oo qaar laga keenay ciidamadii Eritrea oo aan isku istiraatiijiyad dagaal ahayn oo aan isku khibrad dagaal ahayn oo aan isla aqoon aan isla haysan ciyaarta iyo gameka dagaalka aan isla haysan si taliyayaal ay isla yaqaaniin oo isla tababarteen oo isla garanayaan aan haysan oo la isu soo ururiyay inta meel la isugu keeno waliba gaajo lagu dilo 24 saac wax ma ay cunin nimanka dagaalamay oo leeyahay inay dagaalamaan la rabo yay la diray dadkoodii baa lagu diraya moral ay ku dagaalamaan ma hayaan ay kula dirayaan wiilal kale walaalahood waxay ahayd fashil iyo ceeb waa wixii ka dhacay Masagawa iyo Caws Weyne iyo Budbud iyo meelihii la midka ah waxaa la yaabanayn madaxweynuhu istiraatiijiyad xuma hadduu shabaab la dirirayo mujrib aado musoo aado bu'aale iyo meelaha ay degan yihiin maxaa geeyey xaggaa iyo meesha cidlada ah oo ay iyaguba qaxooti ku joogaan marka loo yimaado ay cararayaan oo intay dhabar jabiyaan ciidanka baabi'inayaan ciidamadu maxay u jabayaan 10 ciidan oo aan isku istiraatiijiyad iyo khibrad dagaal ahayn marka isku dhex dartid oo kala taliyayaal oo iska hor imaanaya waxa dhacaa waa wixii ka dhacay Raas Kamboni ceebtii iyo fadeexadii ugu xumayd ayuu Xasan wajahay arrintaani
waxay yiraahdaan culimadu rubba darratin naafi'a waxa laga yaabaa dib arrin kugu ah inuu wax ku taro xasan arrintaani waxay ka badbaadisay kibirkii iyo loo joojin ma iyo doorasho qof iyo codan qabana technically dalkii wuxuu aaday doorasho dadban awoodaadii baa lagu tusay inaadan waxba haysan cidna aadan jajuubi karin baa lagu tusay teendadii rushe diyaari boorka ka jaf kuraastii diyaari hal isugu yimaado ku soo laaba miiskii negotiationka cid walba ku martiqaad oo golow bahashan waa lagu leeyahay haddii aad joogi lahayd waddan ixtiraam iyo xurmo uu siyaasigu leeyahay in yar oo qarasina ay kugu jirto saaka waad resign garayn lahayd Ethiopian baad heshiis la saxiixaysay xuduudaadii ku soo galay illegal adoo la dagaalamaya safaaradoodii baa kuu fadhida yacni meel u socotid iyo meel ka socotid midna laba yaqaan adeero bahashaan ma geedid shuqulna kuma lihid mana u samaysan madaxweyne inaad noqotid iyo inaad maamushida dalkan ha burburin ilaahay subxaana wa tacaala intii dhimatay ha u naxariisto oo ciidan hay waad baabi'isay ilaahay subxaana wa tacaala inta kalena ha kaa badbaadiyo wiilashaas waxaan ku faraxsanaya isdhiibeen laakiin waxaa ceeb ahay inaad soomaaliya ciidankeedii iyagoo maxaabiiso qaxootiya aad kaliftay inay galaan dalka Ethiopia dalka Kenya in hubka laga dhigo oo wararka qaarkood ay sheegayaan in dharka laga bixiyay oo kastuuma lagu reebay qaarkood intay qoriyihii tuureen inay badda u carareen oo ay dhaheen baddaan ba naf ka raadinayna ani nasiib darrada intaa la eg inay ciidanka ku dhacdo maanta waxay ahayd taliyaha ciidankuna inuu iscasilo kan gaashaandhigu iscasilo madaxweynuhuna uu iscasilo ceebta dhacday iyo fadeexadda dhacday darteed waxaas wax loo dulqaaday waxaa laga yaabaase inay badbaadisay dagaallo kale oo xasan geli lahaa oo kuwan kaba sii daranba oo meelo nabada uu la aadi lahaa ciidankii iyo hubkii loogu talagalay dowladnimada in lagu difaaco al-shabaab sanadkii hore bishii August baa ugu dambeysay dagaal lagu qaado dad iyo dal degan baa la weeray ma istaahishaa horta qadiyadda Jubbaland ma istaahishaa in ciidan saas intaa tira saa loo baabi'iyo horta ma istaahishaa does it even deserve soo doorashadii aad kal hore taageersanayd maa wuxuu sameeyey axmedkii sanadkii hore kal hore taa taageersanayd soo iyadii maaha yaase ku siiyey adiga powerka iyo awoodda aad ugu kordhinaysid maamul goboleedyada muddada ama muddaxilaadkooda maadaa wax doorta mise dadkoodaa doorta xildhibaanadooda miyaa doorta dastuurkooda miyaa lagu doortaa mise adaa overriding ku samaynaya dastuurkii aad la carartay doorashadii aad damacday inaad boobtid loo joojimaa waxaa tahay bay maanta ku tustee u soo fariiso runta wajah runta xilka iska wareeji haddaadan yeelayn si nabadan ugu gaarsii teendhada 2026 May 15 doorashadu waa inay dhacdaa intaasaan oranyo billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi